ma xaqiijin kari waxaa ahay maanta cidaa Soomaali ka ahay ma garan karo hooyadey ciday ahayd ma garan karo cause of wax lagu garto hooyana ma jirin anna wax lagu gartay ma jirin baafin waa dareemi kartay qof cunugiisi oo isaga ehel kale tab aqabin oo ilmihiisa ehel uu yahay markii lagu dhaxo cunugaagiisi maxaa xanuunka dareemaysid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waxaan wanaagsan daawadayaal walaalkiin wariye Soomaaliyeed Maxamed Baaruud Xuseen gobolka Waqooyi Bari xeryaha qaxootiga Dhaab. Maanta waxaan joogaa xerada qaxootiga ee Xagar Dheer. Walaalayaal waxaan la joogaa gabar Soomaaliyeed oo la dhaho ama magaceedu yahay Farxiya Cabdinaasir. Gabadhan bidixdeeda fadhida waxay baafinaysaa ehelkeedii qisa xanuun iyo walwal badan. gabadhan Soomaaliyeed 1991 burburkii iyo kala hayeen ummadda Soomaaliyeed bay sidii loo sheegay iyada oo 4 bilood ilaa 5 bilood inta u dhaxaysa dhalan oo dhabarka hooyadeed ama dusheeda ku jirta ayay shil qabsaday hooyadeed oo dagaal iyagoo maaragtay hayaan ama baqa ah ama carar ah inta u dhaxaysa garoonka iyo magaalada Kismaayo bay halkaasi dhibaato kala kulantay. hooyadeed baa halkaasi lagu dilay iyadoo meydka hooyadeed naaskeeda jaqaysa oo nuugaysa oo waa ilmo dhabarka ku jira ayaa nin askari ah oo askartii wax dilaysay ee isbaacsanaysa kamida soo qaaday magaalada Kismaayo keenay reer buu u keenay reer bay u sii dhiibeen calaa iyo xaasil gabadhii reer Soomaaliyeed baa hooyo Soomaaliyeed baa soo nuujisay naaska oo islaamnimo iyo Soomaalinimo u soo nuujisay 14 sano markay jirtay reerkay soo korsadeen quraan la baray oo la soo barbaariyay ee daawadadan isdhalin isfaham waayeen kadib gabadhu way ka tagtay waa la guursaday. hadda waa hooyo laba guur soo martay 6 ciyaala Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku manaystay balse arunta xanuunka walwalka iyo walaaca badan ku dhawaad in ka badan 30 sano oo hadda hooyo xaasa tahay 6 cunugna ay dhashay ma haysato ehel adeer abti ayay sodo iyo cid iyada hilibkeeda ay hadda ma haysato. iyada lafteeda kumaysa dhiirin inay baafiso ay marka hore soo bandhigto balse markii ugu horeysay hadda soo bandhigayna. Farxiya waxaan filayaa waxa kula baxay waa magacii reerku soo koriyay ku bixiyeen Cabdinaasir waxay tiri waa aabihii dhalay ilmihi adnaas kala nuug bal dadka Soomaaliyeed u sheegay qisada ku qabsatay. wallahi qisada ay qabsatay waa sidoo walaalkeen noogu sheegay Maxamed aniga kuma dhiiranin inaan meel soo fariisto oo isbaafiyo ilaa khayr asiya gabar baa ugu dhiirisay gabadhaas walaasheena oo mahad celinaya walaalkay Maxamedna isagana ajiibistoona soo ajiibo oo uga mahad celinaya. aniga waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed hadda anaa hooyo ah waxa aan raadinayo waa dadkayga iyo ehelkayga haddana alxamdulillah ana ehel haysto laakiin bini aadamka kama dhamo cidna qofkiisa kama dhamo. hooyaday ma arag aabahay ma arag ehelkayga ma arkin wali qof jiirkayga ku yaala ma arkin. marka aadan helin qof jiirkaaga ku yaala waa dareemi kartaa dhibaatada iyo nolosha siday kugu noqonayso. cunuga adiga aad dhashay cunuga aadan dhalin isku dareen hataa kuuma oo adiga ana hadda waa dareemay hooyaa noqday kayga haduu maanta dhan qaylinayo waxa laga yaabaa inaana dhibsanin cunuga dawada ugu qayliyo wax yar isagoo si kasta ii wanaajinayna halaas yarka aad dhibsado. marka qofkii ka waran ku soo koray dhowr iyo 10 sano kusoo jiray adii ugu yaraan 17 sano lagu guursaday ilaa 17 sano kusoo dhex jiray dad aan ehelkiisa ku yaalin oo hilibkiisa hadda si kasta qofku wax ugu qabato ama qofka si kasta u caawiso inaad u hagar bixeenna isagana ka dhaadhacsan adna waxa ka dhaadhacsan in lagu hagar bixeenin. tan jirtaa waxay tahay qof walba qofkiisa kama maarmo qof walba oo wax ka maqan yihiin oo ummadda Soomaaliyeed kamid ah oo dadka burburka lagu kala hayaamay ah. aniga waxa ahay cunug dhalatay xilliga burburka dawladda Siyaad Bare 1991 afgambigi dawladdi hooyaday waxay dhimatay ayadoo qaxayso sidee ku dhimatay ma sheegi kari. aniga waxa ahay qof sheekada looga sheekeeyo oo kaliya ah ma xaqiijin kari waxa ahay maanta cidaa Soomaali ka ahay ma garan karo hooyaday ciday ahayd ma garan karo cause of wax lagu garto hooyana ma jirin anna wax lagu gartay ma jirto oo anigina waxa ahay cunug yar oo 5 bilood dhalan hadda cidna ma qiyaasi ka dhaxata inaan noolahay sababtoo ah waxa la qiyaasiyay cunuga hooyadii dusha ku wada haday dhimatay leesma oran karo cunugii waa nool. marka qof walba oo muslim ah oo ama maqlay sheeko inuu qof reer hebel ah uu ka dhumo qofkaasito waxa ka codsanaya si naxariis ku beegantaa inay ila soo xiriiraan codsi bay iga tahay mar walba waa ogtihiin qofka markuu dumar yahay nolosha kaligiis markay soo marto way adag tahay
haddaa qurbaha markaa joogtiina ka calaacashiin dadka qurbaha joogta waxay dhahaan qurba joogaan nahay ilmihii saan ah waana lagu dayacay noloshiisa qofka qariibta ha ka waramo oo aan weligiis la kulmin qof ehelkiisa ah oo weligiis aan arkin qof naxariis u galo oo weligiis arkin adiga hadda waxaa laga yaabaa inaad 10 sano ama ehelkaaga 5 sano kasoo maqan tahay qurba aad tagtaa calaacalayso noloshiisa qofka qariibnimo kusoo dhamaysta 30 sano ku gaari ka waran oo maanta isaga hooyo cunugii weyn ani 11 sano jiraa 11 jir cunugaas iyo 17 sano nolosheeda kasii hor qofka qariibnimo ku sugnaa ka waran maxaa dareemi kartaa dhibaato intee leegu qofkaasi taqaadi karaa qof walba marka oo islaam ah waxaa ka codsanaya qofka sheekadeeda inuu dhayalsanin qofkay wax ka maqan yihiin ama la kulma qof wax ay ka maqan yihiin inuu nala soo xiriiriyo oo waqti uu siiyo insha Allah raxmaan nolosha waa dareemi kartaa markay hooyo kaligeed nooshahay ee ilmo yar yarna haysato ee ilmihiina daryeel u baahan yihiin aan nolol u baahan tahay adigi aad maxaa la dhahaye wax walba aarabto oo garab aarabto oo ehel aarabto oo walaal aarabto oo meel aad miciisanaynin jirno maanta aad dhehaynin waxaan ku ordayaa bal adeerkay adeersaan ma ii garata aad dhehaynin abtisaan ma ii garata aad dhehaynin awowsaan ma ii garata aad dhehaynin qod lagu carra nolosha ayna jirin waa qiyaasi kartaa qof walbana uu dareemi karaa dhibku soo maraa qofka seeto ama uu mari karo baafintaas codsiga gabadha waad maqlaysaan ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaad gabadhan Soomaaliyeed waxay rabto maanta ina ka rabto ma aha guri dhisna malo hanti isayna malo waxay leedahay ehelkii inala raadiye 30 sano bay kali tahay 30 sano bay kaligeed aysan ehelkeeda iyo hilibkeeda sida sheegtay aysan arkin inta la joog hadda way ilmeynaysa waxa ilmeynayso waa xusuus ragga xitaa guursaday qaarkood ilmaha way ku dayriyeen kuma daryeelaan sababtoo cid ay uga cabsanaysan malaha waxay sheegtay ubadkaasi hadda caruurta u badan ninka u dhashay in uu markuu ay kala tageen ay uu dhahay uu ku xujeeyay uu dhahay caruurta isii ilmaha hal isiyo hadii ay ku rabto gabadhan in lagu biilo ama ay lacag email ay kula degto ay rabto waa dareemi kartay qof cunugiisi oo isaga ehel kale tab qabin oo ilmihiisa ehel uu yahay markii lagu dhaho cunugaaga isii maxaa xanuunka dareemaysid ana hadda waa shaqaysan lahaa magaalo walba tii kara oo caasimad marka caruurta iska dhiibo laakiin qof bini aadan ah كلجي من ولكن أنا أول بجير كي هيلب كي وقف كيا لكن الحمد لله أولاد السيستمات أولاد إذا هذا ما ضيق كراي ومسين كرا قف كلته أما أنا ليش أنا وحبك وجان كر أنا رجاني مكسو كره هو الآن حتى أنا سو أرك مرة ونجي إنه درهم هو الآن أنا أقول له تجير عافمات قوى الحمد لله سيدا كون ولا الهاي الإله قرشي قف يكون يقول بعلو شيء إذا مالك وحبيبيك الله وتلقى لهم كون ولا الها ونولانا بإذن الله الباري ونجينا اسكديبو أما قفك لا أنسيو أو أنا أسكر حستو أو أسكور وريبو waxa ay siinayeen dameerta ah marka abtigay u tagaayo ama guri ehelkay leeyahay atagaayo ama adeerkay atagaayo oo idaha adeerkay niidi iidisay laakiin marka ilmahayga ka soo tago caaw ah xanuunsado qofku ugu soo leexanayo ma jirto ilmahayga laakiin waxa xasuustaa damaad dhigliga qabto hooy ma xanuunsado cunug walbiga ma kortagay haddaba walaalka Soomaaliyeed walaashay iyo walaalka Soomaaliyeed ee daawanhayo ehelkaada qaraabadaada aqrabadaada qabiilkaada jifadaada hoose degmada deganta iyo guriga aad joogto ma ka maqan yahay qof qaxi Soomaaliya ma lagu waayay runtii aniga shakhsiyan dad cid kasta qof ka maqan aniga xitaa gabar baa iga maqan laakiin ma aha gabar iyada weyn baa dhuntay qof kasta Soomaali qof ka maqan waxay ahayd saqiir waxay ahayd 5 bilood sida sheegtay hooyadeeda oo meeyda laga soo kor qaaday adiga waa haddaba qof ma ka maqan yahay ma ogtahay qof raadinaya farxiyo waxay diyaar u tahay in maaragtay dhacaanka DNA-ga laga qaado qof kasta soo hebsada inay la kulanto qof kasta oo qof raadinaya inay qanciso oo la qanciyo ayadana way u baahan tahay waxa intaas u dheer dhag hadalka Soomaaliyeed waad garanaysaane ay ku dhag hadlayaan oo ma tol bay leedahay ma dad bay ka dhalatay iyo waxyaabahan ay Soomaalidu ku hayaan ba ka sii daran walaalayaal waxaan codsanaynaa muuqaalkina sheegaraysan muuqaalkina sii gudbisaan muuqaalkan aan ku caawino walaasheen in ay ehelkeed ku hesho waxa intaas u dheer waa gabar iimaan leh waa gabar runtii diinta baratay oo iimaan iyo qanaacad badan ay ka muuqato waxa la ii sheegay dadka aqoonta u leh waliba ugu soo xiray in nolosha gurigeeda ay baaba'tay hadda gurigan aan hawsha ku sameynayna keed maaha caruurta iyada ay dhashay baan kala xishoonay in hooyadeed oo hintooda iyo waxan iyo nolosheeda ay caruurtu dareemaan oo niyad jabaan caruurta ay ayagana si kala dareemaan guri gabar saaxiibteeda marka hawshan ku sameynayna ilaa qarasiya ayadana marka gabadhan waa magacayna guriga nagu soo dhaweysay marka waxaan codsanayna walaalayaalow waad ogtihiin waad dareemi kartaan 30 sano oo dan ehel qaraabo walaal hooyo iyo cid adiga aad isku jirtihiin aadan arkin rajaduna aysan wali fiicnayn oo aadan meel ku ogeyn waa arin ay xajisan weyday waa arin ay la aamusi weyday
waa arrin ay codsatay inaan warbaahinta usoo bandhigno. waana soo bandhignay baraha bulshada waxyaabaha kala duwan ee balaayada iyo baaska iyo xumaanta waad faafisaane faafiya codsiga gabadheena iyo cabashadeeda aan maaragtay aan kasoo farxino dadka aan gaarsiino qof kaste oo raba inuu qofka maqan yahay oo ama la qanciyo ama iyaduba ay qanacdana nambarada shaashada ku qoran maad ka soo wici kartaan. aad iyo aad baad umahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakatu. codsigaada ugu dambeeya. walaalayaal mar walba aniga waxaa idin leeyahay hunguri la cuno waa laga dhergaa laakiin ehelka lagama dhergo. qof walbo waxaa ka codsanaya inuu ii sheergareeyo videogaaseyto ilaahay dartiisana iigu sheergareeyo si aa u farxo adiga saa u faraxsan tahay camal aa ugu faraxsanaada ehelkeyga si aa ugu dhex jiro insha